waxaan ka hadlaynaa arrinta beledweyne ka dhacday maanta oo aan wax nin damiir leh iyo bini aadanba wuxuu u dulqaata ahayn nin mas-uul aan ahay leh oo meeshaas sinada ka jirtaba asaga loo malaynayo inuu dabada ka wado oo la wada og yahay oo inta kaxeeyey dad laba ajaanib ka dhigay waa labadii reer oo heshiinaysa leh wax ka jirana aanan jirin. waa gartay waa kuma ninkaas waa ninka gobernatooraha gobolka ugu magacaabay ninkaan meesha joogo magaciisa waa cabdifitaaxaan dhegta ka maqlaynoon annaga hore umaanaan arki jirinaya waa ninka gobolka hiiraan hadda mas-uulka ninkaan uu oga dhigtay oo inuu beeraha wakiil uga yahay aan qaybayn. waya nabadoone marka maxaa waroo ka soo yeeray cabdifitaax maanta? waxaa ka soo yeertay inuu inta dad kaxeeyey raadiyaashii iyo wixii hadal aan sal iyo baar lahayn oonan dadka meesha joogo waa dad ku joogo oo qoryo haysto oo dadkii beledkaas degnaa ka qaxiyey oo gubay guryahoodii oo xoog ku joogo oo laba dhinac inta ka keeno labadii qoryaha dadkii haysto inta ka dhigay laba ajaanib ayuu leeyahay dadkii waa heshiiyeen saas isagoo u samaynaayo in ay macnaa ay dadkan hay-adaha haddana uu lacag kale uga aruuriyo oo ciidamada uu ku biiro oo dadkii meeshaas lahaa oo duulimaadka ku soo ahaa uu haddana kaga hortago ama uu xooggaas ku sii haysto laguna sii biiro oo uu hay-adaha xoolo uga qaato. goorma warkaasi ka soo yeeray cabdifitaax gudoomiyaha gobolka hiiraan? walaalow maanta ayaa hiiraan laga soo sheegay warkaas ayaga oo waxa meesha wax ka teginayana gobolka idaacadaha BBC-da iyo midaan voice americada midaan VOA-da labadaba ayagana waa diideen inay waraysi ka qaadaan dhanka kale oo ka soo horjeedo dagaalka hiiraan labada beelo isku haysata beel kamid ay la safan yihiin. marka waxyaabaha uu sheegay cabdifitaax haddaa si fiican u qeexdo nabadoone maxaa kamid a ma wuxuu yiri beeri waa heshiisiiyey? waxaa kamid a beerihii waa heshiisiiyey haddee waa wax la yaab le meeshaas dad badanaa ku dhintay waxaa ku dhintay markay ugu yaraato cabdifitaax markay ugu yaraato dadkaasi 3 sano dagaalkaas socdaa 600 oo qofood dadkaas waa ku dhinteen 2,000 ku dhawaad waa dhaawac wax hadda meeshaas ka yaalay oo uga daatayna ma jiraan waa guryo dadeed waa beero dadeed waa dad oo documentiis oo beled oo dhisan waxa waaye wax hadda meeshaas nuxur oo ka yaala male qorigii shalay ay ku qabteen ayaa lala duljoogaa marna waa laga qabtaa marna ayagaa qabsado hadda wax yaraa loo saaran yahay waa duulimada ku socdo haddana tii uu ku baabiinayaa uu leeyahay waa la heshiiyo caalamka indhihiisuu dadbayaa. marka cabdifitaax muxuu ula jeedaa warkaas haddayna marnaba beeri la heshiisiinin dhibaatadiina weli ay taagan tahay ujeedada dhabta ee laga damacsan yahayna waa maxay? ujeedada dhabtooda laga damacsan yahay waa laba arrimood. inuu dhaqaalo ku helo oo hay-adaha caalamka uu dhaqaalo uga helo waxbaan heshiisiiyo uu annaga nagu sii baabi'iyo gaarte iyo inuu mataqaanaa uu yahay sideedaba nin fidna abuur ah oo inay joogto uun hawshaas oo uun holkaas uu taagnaado keliya ka rabo. xaalada guuda hadda deegaanadii lagu dagaalamay hiiraan ku yaala kabxale iyo deefow maxaad waroo kale nugu biri kartaa oo ka jira? waxaan annaga dhegta ka haynaa in la yidhi dadkan in ay dagaalkii joojiyeen qoladan amasoonta ah la leeyahay se way ka baxaayaan beeshaan horey u qabsatay oo 3 beri loo qabtay maanta ay oga eg tahay wixii ka dambeeyana haddee annaga awalba un annaga dagaal kale ma anaan rabin guryaha annagaasaan u soconiyo beeraha annagii haddii intaas wax dhaafsan ay dhacdo inaan xabadda horey ka bilaabanayso oo nin